مسكوي ما كان ربيه وما نيل مسكوي ما كان ربيه وما نيل مسكوي كرر بعها وندري ما لدونيا هردل ربعها وندروها قان لدونيا وينا وذاك ساهم بنردوي ربا dugsiga hoose dhexe Bacadweyn oo la aasaasay sanadii 1954 ahna dugsiga ugu facaweyn dugsiyada ku yaala gobolka Mudug ayaa waxa ka qalin bedelatay 39 arday munaasabad si heer sare loo soo agaasimay laguna soo wootinayay 39 arday ka qalin bedelatay dugsiga hoose dhexe Bacadweyn waxaana ka soo qayb galay maamulka deegaanka Bacadweyn culimo dhalinyaro haween iyo mas'uuliyiin kale ugu horeyntii waxa munaasabada ka hadlay maamulaha dugsiga hoose dhexe Bacadweyn Ustaad Cabdiraxmaan Sheekh Xasan wuxuuna ka sheekeeyay taariikhda dugsiga iskuulkan wuxuu furan yahay 30 sano burburkii kadib 30 sano laga jooga intuu furan yahay iskuulkan kantan iyo afartii ayaa la dhisay 30 sano waxa wax ku soo bartay kumanaan arday wax ku soo baratay dadkii wax soo baray qaar waa leedeen qaarna waa nool yihiin qaarna waa tageen kolay anigu wali waa taagnahay dhanka kale Faadimo Cabdiraxmaan Warsame oo ku hadlaysay afka waalidiinta ayaa la dardaarantay ardayda ka qalin bedelanaysa dugsiga waxaan in leeyahay in la dardaarmayaa si gaar ah in la dardaarmayaa ardayda qalin jabinaysa waxa loo baahan yahay insha Allah inaad dadaashaan si aad iyo aad inaad u dadaashaan waxa weeyaan waalidiintu si u soo rafaadayaan u silcayaan waxa loo baahan yahay ardayda qalin jabinaysa inaysan waalidiintu dhigtii hor ay uga soo marnay aysan dib dambe ka marin hadduu Ilaahay yiraahdo si gaar ah inuu dadaalaan waalidiinku waa u dadaalaan laakiin iyaguna waxa loo baahan yahay inay dadaalaan geesta kale maamulaha dugsiga sare ee Bacadweyn Maxamed Ali Saciid ayaa dhankiisa waxa uu ballan qaaday in labada arday ugu sareysa uu deeqi doono waxbarasho lacag la'aan ah dugsiga hoose dhexe ee Bacadweyn inaan insha Allah taala scholarship u siin doono imtixaankaas inta markuu galo oo Ilaahay ku guuleysiyo labada arday oo ugu sareysa insha Allah taala inaan siin doono Bacadweyn Birimiri xiisaha iga gaarka hadan soo gudbiya maanta go'yaal badan ninkii soo jira guudka ka ciraystay iyo kii garaliiba way garan karayaane bal gudooma falada halkan uga goljeexay sidoo kale macallin Yuusuf oo ku hadlayay afka macallimiinta deegaanka Bacadweyn ayaa isna goobta ka hadlay macallimiintu juhdi badan bay ku bixiyeen waxaan rajaynayaa insha Allah taala inay kaalin muhiim ah ka soo qaadan doonaan waxaan ugu ducaanayaa dhamaantood inay insha Allah taala wada faa'iideystaan ku wada guuleystaan imtixaanka meel wanaagsan soo wada gaaraan waalidiinta iyo macallimiintuna ay ku farxaan insha Allah taala ugu dambeyntii gudoomiyaha deegaanka Bacadweyn Jaamac Cabdullah Warsame ayaa ka maamulahan u duceeyay ardayda ka qalin bedelanaysa sidoo kalena ka codsaday in la dhiirigeliyo hooyooyinka ku howlan nadaafadda deegaanka Bacadweyn كما مرحبا دعينا وحالنا امتحان كبون examination كفوت إذا كسوعية إلهي وحاول إذا كده كوي مجد في عنك كيانا وحنا نقولنا إذا كانت نظافة Bacadweyn gacanta ku haya inay yihiin dad waalidiin ah qofka ugu yar wuxuu waxaan u maleeyaa daadiisa 30 sano waa ka weynta haddana dadkaas waxa weeye afarta xaafadood oo Bacadweyn nadaafadeeda gacanta ku haya waa wada dumar hal nin ma taraxo waxaan leeyahay dadkaas la dhiirigeliyo hala shaqeeyo Mawlid Maxamed Kooshin warbaahinta SBC degmada Buurtile